ciidanka booliska ee Nigeria ee loo yaqaano NSBU oo ka hoos shaqeynaya howlgalka midowga Afrika ee ku-meel gaarka ee Soomaaliya ee ADMIS ayaa isbedel lagu sameeyay taliskiisa waxaana xilka la wareegay taliyaha guud ee booliska Maxamed Ibrahim oo xilka kala wareegay intii ay socotay munaasabad xil wareejin ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mr. Ibrahim oo madax ka noqonaya qaybta 11aad ee ciidanka NSBU kuwaas oo qayb ka ah howlgalka ADMIS ayaa xilka kala wareegaya taliyihii ka horeeyay ee yiraahdo Samuel Paty waxaana munaasabada xil wareejinta qayb ka ahaa taliyaha booliska ee ADMIS, kaaliyaha kormeeraha guud ee booliska iyo mas'uuliyiin kale. kaaliyaha kormeeraha guud ee booliska ayaa ku amaanay taliyaha NSBU ee xilka ka degaya in kooxdiisa ay sida ugu adeegeen howlgalkan uu ahaa mid aad u wanaagsan waxaana uu sheegay in adeegoodu uu ahaa mid sharfan oo xirfad leh isla markaana ay u shaqeeyeen si geesinimo leh si ay u horumariyaan howlgalka ADMIS. caqabado badan ayaan ka soo marnay Jowhar iyo Beledweyne balse waan ka gudubnay. kooxdaada weyn ee dalka Nigeria ayaa soo bandhigtay si cajiib ah. waad ku mahadsan tahay adeega hagar la'aanta ah ee aad u qabateen shacbiga Soomaaliyeed. markaad guriga ku laabato la wadaag khibradaada xiisaha leh asxaabtaada. We have gone through a lot of hurdles. Jowhar, Beledweyne, especially Beledweyne, but we'll survive it. Nigeria to perform a duty which you have done. Thank you very much for the relentless service you've delivered to the Somali people. taliyaha xilka ka degaya ayaa hadalkiisa xil wareejinta waxa uu mahadceliyay saraakiishii ka hoos shaqeynaysay amarkiisa sida ay u horumariyeen waajibaadkii loo igmaday inkastoo uu sheegay in ay caqabado kala kulmeen musiibada COVID-19 iyo sidoo kale baahida loo qabo in la helo amni ku filan inta lagu guda jiro doorashooyinkii qaran ee dhawaan la soo gabagabeeyay. guusha ugu weyn ee aan gaarnay tan iyo markii aan halkan imid waxay ahayd ka qaybgalka saraakiishayada doorashooyinkii dhawaan soo idlaaday taasoo keentay in la doorto xubnaha baarlamaanka, gudoomiyaasha iyo madaxweynaha. waxaan qayb ka ahayn taariikhda ka dhacday Soomaaliya. The major achievement since I arrived here has been the participation of me and my men for the smooth conduct and a free electioneering campaign that led to the election of members of the parliament and the swearing in of a new elected president. It has never happened according to history that election actually took place here in Somalia. 159 xubnood oo ka tirsan ciidanka NSBU oo soo dhameystay socdaalkooda shaqo waxa ay ku shaqeeyeen amarka ADMIS tan iyo 22 bishii Maarso 2021. afartan sargaal ayaa la guddoonsiiyay bilado iyo sidoo kale shahaadooyin adeegooda ku dayashada leh. taliyaha xilka la wareegaya ee NSBU Mr. Ibrahim ayaa ku amaanay ADMIS, militariga, booliska iyo sidoo kale qaybaha rayidka horumarka laga gaaray fulinta waajibaadka howlgalka ilaa iyo hadda. ciidanka NSBU ee Imaaniya waxa ay furo u noqon doonaan taageerada tayeenta ciidanka booliska Soomaaliyeed SPF iyo xaqiijinta si buuxda mas'uuliyadaha amni loogu wareejiyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. marka laga soo tago qabashada roodooyinka wadajirka iyo sidoo kale ilaalinta xarumaha muhiimka ah iyo rayidka iyada oo la howlgelinayo booliska ADMIS waxaa loo igmaday in ay taageeraan oo ay tababaro gaar ah siiyaan sidoo kalena ay kala shaqeeyaan la talinta ciidanka booliska Soomaaliyeed.